السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نوضع وضيال كسو دواد برنامج كيف فلنقين تمانتا قوضا بضاين مانتا برنامج كينا كسو قادن دون نضع وضيال وحاكم إذا رئيس الوزراء أبي أحمد إيو مدحوين بيحي أو سيوذا جراح قالين كودوغي دونا هشيسكي أي كلا سيحيحدين بيشي كوبات كوديدي لباتن يافر إمي سودان أيا مرخاتي كنوقن دونا هشيسكن رسميغا إيو أقنسيغا سوماليلان هذا الكي رئيس الوزراء أبي أحمد safarka madaxweyne biixi qodobada iyo qodobo kale ayaynu falanqayn doonaa daawadayaal iyo wararkii ugu dambeeyay ku soo dhawaada barnaamijkeena daawadayaal haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto mahadsanid isafgaradka u dhaxeeyay Somaliland iyo Ethiopia oo ku sii siqayay muddo 7 bilood ah ayaa ay si rasmi ah qalinka ugu duugi doonaan madaxweyne biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waadka fooday nagu soo haya haddaba maxaa keenay in uu heshiisku muddada inta la qaato iyadoo oo loo maldahnaa muddo bil ah haddaba ila wadareedyadu waxa ay sheegayaan in uu heshiiskani u baahnaa xulafo xoogan oo geeska Afrika iyo caalamkaba sida oo kalena uu la kulmay xulafo kale oo ka soo horjeeda oo cadaadis ku saaray sidii uu u baaqsan lahaa heshiiskan haddaba diblomaasiyiin Somaliland iyo Ethiopia ayaa waxa ay ku dadaaleen in ay helaan xulafo caalamka ah kuwaas oo u arka in uu heshiiskani u yahay labada wadanba mid barwaaqo sooran ah iyo guud ahaanba qaaradda Afrika haddaba sida ay ila wadareedyadu sheegayaan Somaliland iyo Ethiopia ayaa diyaariyay 4 wadan kuwaas oo ku raaci doona heshiiskan isafgarad iyo aqoonsiga Somaliland haddaba wadamada tan ayaa markii hore ahaa kuwa cilaaqaad fiican oo siyaasadeed la lahaa Somaliland haddaba waxaa kow ka ah wadanka Kenya oo ay jaar yihiin Soomaaliya kaas oo Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ay lahaayeen cilaaqaad diblomaasiyadeed oo aad u wanaagsan sidoo kale waxaa kamid ah wadankaas Koonfur Afrika kaas oo ay Somaliland leeyihiin cilaaqaad diblomaasiyadeed oo aad u wanaagsan sidoo kale waxaa kamid ah wadanka Suudaan iyo wadanka Guinea kuwaas oo ay Somaliland hore u soo dhaweysay oo ay dawladda Soomaaliya xiriirka cilaaqaad u goysay haddaba 4 wadan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqi doona aqoonsiga Somaliland sida la saadaalinayo xildheerayaasha siyaasadda Somaliland iyo Ethiopia ay sheegeen haddaba madaxweyne biixi ayaa safar ugu bixi doona caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia marka labaadna waxa uu qalinka ku duugaya aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland iyo heshiiska isafgarad ee uu wadankaasi la galay haddaba dhaqdhaqaaqyada soo dhamaaday ee guusha qarka u saaran ayaa dhimasho uga dhigan dawladda Djibouti iyo Soomaaliya haddaba madaxweyne biixi ayaa ay astaan u noqonaysaa uu kaga duwan yahay madaxweynayaashii soo maray Somaliland muddadii 30 sano ahayd ay tirsanaysay haddaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isna hadlay ayaa waxa uu daaha ka rogay in aanay marnaba ka laabasho lahayn heshiiska Ethiopia ay ku helayso marinbiyood iyadoo oo saldhigga military ee Somaliland siinayso ay Ethiopia in badan ku soo taamisay qodobka xiga in barnaamijkeena daawadayaal ku soo qaadan doono waxaa kamid ah booliska Soomaaliya oo tallaabo farxad leh maanta qaaday oo ka farxiyay shacabka magaalada Muqdisho kadib markii ay qabteen wiil muddooyinkii ugu dambeeyay social media ku soo bandhigay waxyaabo aad u anshaxuma kaas oo Ilaahay raga ka dhigay iskana dhigayay qof dumar ah haddaba ninkan oo lagu magacaabo Axmed Suudi Deyo ayaa booliska Soomaaliya waxa ay sheegeen in uu ninkani qaabka uu Ilaahay u abuuray wax ka bedelay social media-hana uu ku soo bandhigay waxyaabo anshaxuma haddaba ninkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay aaladda loo yaqaan TikTok ku soo bandhigay isagoo oo gashan dirac ama baati
kaas oo ay dumarka Soomaaliyeed caan ku yihiin. Haddaba ninkan lagu magacaabo Axmed Suudi Deeyo ayaa isna waxa uu ku doodayaa oo uu sheegay in uu yahay nin raga, laakiin uu Ilaahay sidan u abuuray oo ay ku badan yihiin hormoonada dumarka. hase yeeshee laakiin waxa taas gaashaanka u daruuray laamaha amniga. Haddaba muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ninkan cabasho aad ah ka soo gudbinayay shacabka magaalada ku nool Muqdisho. haddaba waxa wax iska caadiga ka noqotay social media ama barta loo yaqaano aaladda TikTok dadka noocan oo kala iyadoo kankii ku horreeyay ee lagu magacaabi jiray Master Gariir ay maxkamaddu ku xukuntay muddo 1 sano oo xadhig ah. daawadayaal intaynu barnaamijkeena ku xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.